kulanti oo wacan oo wanaagsan dhageystayaal iyo daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii shanaad sheekadii ay noogu magac darnay curad oo uu qoray wariye Maahir Jaamacadan. qaybtii afraad ee sheekadan ayaa waxay joogtay meel aad u xiiso badan hase yeeshee qaybtan shanaad ayaa waxay ku bilaabanaysaa sida tan. waxaan ku qasbanaa inaan sugo Sahra si aan u fahmo warka ay ii sido. markay agteeda timid ay qabatay gacanteeda bidix kadibna ay ii hogaamisay banaanka guriga. Sahra oo aad u xurtaysan oo shucuurta iyo waliba dareenka ka muuqdana uu yahay mid aanan ka arag dhawaan ayaa warkeedii ka fahmay oo kaliya walaalo waan ku baryaa isaga tag meeshan. ninkii Maxamuud aha qorshihiisa uu ka dhaadhiciyay maamada isla hadda ayaan la rabaa in lagu kaxeeyo ee intaani soo bixin iyagu ka tag adiga meeshan. wax walba degdeg ayay noqdeen ma waxaan ka fikiraa go'aankan qaadan lahaa mase waxaan ka fikiraa halkan aadi lahaa. intaas oo dhan waxaa ka muhiimsan in ugu horeyn la iga waayo xaafadan aniga oo aan ku laaban gurigii ayaan magaalada toos uga baxay. waxaan raacay gaari bas ah anigoo sidan lacagtii aan ku bixi lahaa laakiin darawalka oo nin wanaagsan ah ayaana lacagta igu dhiban. markaan ka degay baska ma jirto xaafad aan ku socdo oo ii qorsheysan xilligaasi haddana waxaan imid degmo kale. waxaan fariistay meel maqaayad ah oo ay dad badani ka cunteynayeen qaarna ay ka shaahayeen. daqiiqada ayaan halkaasi fadhiyay aniga oo dhowr arrimood ka wada fikiraya sida maxaa ka dambeeyay oo ka dhacay guriga markaad soo baxsatay kadib. Maxamuud muxuu ka damacsan yahay hadda xageed aadaysa iyo wixii la mid ah. anigoo intaas arrimood midna aanan wax go'aan iyo xal ah midna ka gaarin ayaan maqlay qof ku dhawaaqaya magacayga oo saddexan. waxaan eegay dhankii oo qofkaasi iga jiray waa Salaad oo aan isku xaafadnahay reerkana aad u yaqaana laakiin halkan ama degmadana ka ganacsada. meherada aan fariistay ayaana ku beegan dukaankiisa aad baan aragiisa ugu farxay. waxaan aaday dhankiisa iswareysi dheer labadeena kadib wuxuu iga farxiyay inaan helayo meel aan ku hoydo iyo waxaan cuno muddada aan doono sidoo kalena uusan xogteeda cidna la wadaagi doonin. markaan wax badan u sharaxay Salaad xaaladeeda waxaan isaga soo dhownahay tuhunka ah ujeedada oo walaalkay Maxamuud aniga iga leeyahay cidna ma garan karto laakiin halkaas shakiga ku jira uu sii xoog batay. muddo 8 cisho ayaan halkaasi ku dhuumaaleysanayay kuna noolaa. Salaad wuxuu mar walba uu soo mari jiray xaafadeeda si uu akhbaar u iga keeno. waxa kaliya ee caloosheeda gubay ayaa ah in 8 maalmood oo aan ka maqanahay gurigeyga aysan tabin dariskayga xitaa maamada oo uu Salaad dhowr jeer iga xal wareystay. kamana muuqan wax walaac maqnaashayga xitaa ma aysan muujin inaan maqanahay. hase yeeshee Sahra waa midda kaliya qalbigeeda aanan ka bixin waliba wajigeeda laga dheehan karay walaac maqnaashayga uu ku hayo. ninka ay dunida la dhalatay gabadh mararka qaar wuxuu noolaan karaa hooyo la'aan laakiin Salaad marnaba uma sheegin qoyskayga in uu anigu meel igu og yahay oo sida waxa uu ahaa ballankeena. waxaan qaatay talo uu soo jeediyay Salaad oo ah in aamuskan lagu moosay xaaladeeda aan jabiyo lana xiriiro wiilasha dibadda ku maqan ee walaalahay ah si arrinkan qoyska iyo tolka ugu wada baraarugaan. waxaan la xiriiray mid iyaga ka mid ah oo ku nool dalka UK. waxa cajiib ah in uu igu yiray waxaad sheegayso waa maxay xitaa xanuunkayga 4 bilood ma uusan maqal. waxaan anigu garan waayay si aan wax uga sharaxo waayo dhibaatada hadda aan ku jiro wuxuu ila fahmi lahaa marka uu og yahay waxa 4 bilood oo cumrigayga ka mid ahay soo maray. wuxuu isagu ila fahmi karay inaan markaan ahay dhibane garab aan u baahnaa. wuxuu yiri biri ayaan lacag ku soo dirayaa hawshana bal waan xuraasanayaa ragay kalena waan la wadaagayaa ee aniga iga warsug walaal. waxaan iri lacagta waxa iga muhiimsan walaalow xaalka arrintan waxaan ahay nin la baxsanaya caafimaadkiisa ee xal ii keen sidan kuma noolaan kara ee. intaasi kadib waxaan noqday qof xal suga oo aan weli saldhigan xaaladda noloshiina. waxaan mar waliba hubaa in arrinkan uu yahay qorshe la iga maagan yahay. waa maxay se qorshaha?
la soco qaybta lixaad ee sheekadii aan ugu magac darnay curud ee uu qoray saaxiibkay Maahir Jaamac Aadan. qisadanna waxaa laga qoray qof ka mid ah bulshada Soomaaliyeed.